arrin Soomaali sanaag waa arrin qof kastoo Soomaali u muuqata inna ka qarsoonay labada gobol runtii waxa ku dhacday nasiib darro siyaasadeed laba dowlad goboleed oo Soomaaliyeed ayaa mid kasta wuxuu leeyahay aniga tirsan mid toos u xukuma boqolkiiba boqol xukuma oo maamulkiisu gaarsan yahay oo ka wada taliyaan ma jiro marka dhibaatada dhacdo waxa weeye hay'adihii caalamka ka yimi ee rabeen wax gaarsiiyaan markay mid tagaan hadii dowlad goboleedka gobolka ay tagaan ama hadii tusaale ahaan Garowe tagaan oo ka baxaan Garowe ma tagi karaan labada gobol toos ma tagi sababta waxa qayb kamid ah Soomaaliland bahaysta dhaxda ka soo noqonay hadii Hargeysa yimaadaan hay'adahaas rabaan inay tagaanna ma wada tagi karaan qayb Puntland bahaysta marka dhibaatadaas waxa weeye xaggana maaha waxay toos u helaan loo qoonday oo haystaan ma jira marka hadda tusaale ahaan bishii hore October waxaan saxanay 5 sano soo socota heshiis aan la galay UN-ka oo cadeynaya qeexaya ana soo ogolaana waa saxanay in si toos uga shaqeeyaan halkaas macna ma sameynayso in ilmaha jooga gobolada Sool jooga Sanaag jooga iyo kuwa Nugaal iyo Waqooyi Galbeed ama Muqdisho ama Kismaayo ama Baydhabo halka jooga wax kala duwan ma jirto shacab Soomaaliyeed xuquuqda same xuquuq baleeyihiin isku xuquuq weeye isku duruufo weeye isku mid weeye marka in midna la yiraahdo sabab jira awgood iyo siyaasado gobol kale ka jira daraad waxba lagu ma keeni karo kuwa kalena la tagi karo in aniga oo taalahan ka soo jeedo gobolka Sanaag ana tagi karin gobolka Sanaag leeyahay timaadid balaaya dhacaysa laakiin gobolka Soomaaliya tagi karo mashaariicda qaar kale leeyahay lama geen karo sababtoo ah xagga marsiisana xagga xanaaqista xagga marsana xagga xanaaqis marka arintaas horta waa arin xuquuq insaanka xataa ee Soomaalinimada iyo dawladnimada dhaawac ku ah marka dawladahan dadka Soomaaliyeed noo sameeyeen shacabka Soomaaliyeed marka soo jooga noo sameeyeen dadka dawladda federaalka dawladda wada ah gobolaha kala jirjireen ee dawladda Soomaaliya kor ahaan wasiirka qorsheynta federaalka Soomaalida loo yacdo ila raas Kamboni waa soo kaymid kul ana wasiir kale qorsheyn wadanku leeyahay ma jiro dawlad goboleed waa leeyahay wasiirada oo inuu qorsheeyo marka kala cad jooga ee gabadh raas Kamboni joogta waa in iska soo qorsheeyo marka ma boodi karo kuwa dhaxda oo ma oran karo kuwa hadii wax loo qorsheeyo ama wax la gaarsiiyo kana xanaaqay cadaalad ma xaga shaqeynaa marka arintaasi waa arin runtii anaga fikirkeyga dawladda federaalka dad Soomaaliyeed way xuquuqdooda leeyihiin qof kasta Soomaaliyeed la mid yahay xuquuqi